kusoo maqal waxaan kusoo koob doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqyada cryptocurrencies iyadoo aan ognahay in suuqyada digitalka ee caalamka guud ahaanba ay saameyn ku yeesheen xiisadaha ka taagan qaar kamid ah wadamada caalamka waxaan ku hormarinaynaa Kuuriyada Koonfureed waxa ay diyaarisay ama ay sameysay guddi gaar ah kuwaasi oo diyaarinaya xeerarka iyo nidaamyada digitalka ah ee Kuuriyada Koonfureed xisbiga hay'adda talada wadankaasi ee la yiraahdo Democratic Party ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay dhiseen Digital Asset Task Force si ay u diyaariyaan sharciyada dhamaystirka ah ee ku saabsan stablecoins-ka iyo hantida digitalka ah guddigan waxa ay qorsheynayaan in sharciyadan ay meel mariyaan fadhiyada caadiga ah ee baarlamaanka iyo kuwa dhamaadka sanadka ee baarlamaanka qaranka talabadan waxa ay timid iyadoo dalku uu wajahayo cadaadis sii kordhaya oo la xiriira lacagaha baxaya ee loo yaqaano capital finance kadib markii kaliya 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2025 dalka ay ka baxeen 40.6 bilyan oo ah hantida digitalka kuwaasi oo kala bar ay ahaayeen stablecoins Solana iyo XRP waxa lagu daray ETF-yada waaweyn ee Mareykanka iyadoo SEC ay furtay albaab weyn oo maalgashi oo cryptocurrency ah waxa la xaqiijiyay in XRP iyo Solana lagu daray ETF-yada waaweyn ee Mareykanka ka diiwaan gashan talaabadani ayaa waxa loo arkaa mid taariikhi ah oo bedeli karta jihada cusub ee suuqyada crypto go'aankan waxa uu ku saabsan yahay ama uu ku soo beegmay iyadoo SEC ay ogolaatay sharciyo cusub oo fududeynaya helitaanka hantida digitalka ah ee la soo geliyo ETF-yada taas oo furaysa ayaa la yiri Floodis waa weyn oo maalgelin ah ugu dambeynna shirkadda isweydaarsiga ee Kraken ayaa waxay raadinaysaa maalgelin cusub shirkadda market cap-keeda waxa lagu qiyaasaa 20 bilyan laakiin hadda waxa ay doonaysaa wada hadallo cusub oo ay ku doonayso inay ku hesho Kraken maalgashi qodobadaas ayaa ugu weyn wararka maanta ee cryptocurrency la soco my exchange follow so TikTok-geena sidoo kale Facebook-geena subscribe soo saar YouTube-geena aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin